السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto ay daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta waa talaado taariikhduna waxa ay ku beegantahay 3 bisha Febraayo sanadka 2026 waana barnaamijkii labaad ee maanta aan idin soo gudbinayno. haddaba qodobada barnaamijka aanu ku soo gudbinayno waxa ka mid noqon doona إيران أو شروطه كحرتي شركي لفلي جمعها إنه كدعو إسطنبول كاسوا إسكو أركيلهايين إيجا إيوم بريككا هذا بشروطها سيان دين هيا وعشو كلام برنامج كأن كسو قد بالدورة لحدون يود أو هبايسان أو عيدا ماذا بدا إيران إليهين أولا شيء إني عيرسدين مركب بريكا كولياي محا كان عيسى عديه لصورنا في ماشا ليرادو هرمز أو مرين بيوت haddaba sheeko la yaab leh oo arkaa meesha ka dhacay ayaynu barnaamijka iyana ku faahfaahinayna waxaa kale barnaamijka idinku haynaa cabsida Israa'iil ay ka qabto Iiraan oo sii xoogaysatay tababar ay sameynayaan ciidamada iyo dadka ka shaqeeya gurmadka haddii gantaalaha Iiraan ay ku soo dhacaan Israa'iil sidii dadka loogu gurban lahaa tababar ayaa socda haddaba tababar macelina Iiraan gantaalaheeda waa su'aal meesha taagan qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo talaadaha ku soo gudbinaynaa asxaabay inta aan ku jirno barnaamijka wixii warar ay soo kordhawaan idin la socodsiin doonaa haddaba warar soo kordhay hadda dhow soo dhacay oo Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay qoreen waxaa lagu sheegay in Iiraan ay shuruud ku xirtay shirkii jimcaha loo ballansanaa inuu Istanbul ku dhex maro maraykan iyo Iiraan haddaba shuruudu maxay tahay maxaase keenay Iiraan maxay ka shakisay sheekooyin la yaab leh ayaa ku dul hogan warkan soo baxay haddaba wararku waxay sheegayaan Iiraan inay doonayso marka hore in shirkan ka dhici lahaa Istanbul loo wareejiyo dalka Iiraan ay dariska yihiin ee la yiraahdo Cumaan waa meeshii markii hore wada hadallada ay ku dhex mari jireen Mareykanka iyo Iiraan meeshahana loo geeyay Istanbul waa ka wareegsanaynaa haye waxa lagu ballamay ilaa 6 dawladood sidii barnaamijka horaan ku soo sheegay oo Caraba iyo inay yimaadaan oo shirka yimaadaan Istanbul waxay leedahay cid noo imaanaysana male annaga iyo adiga waxa isku wareysanaynaa Cumaan meesha iskaana keen ariga marka waxyaabo badan ku dhex jira Iiraan marka maxay ka shakisay xogta iyo fariimaha Iiraan ay heshay maxay tahay Istanbul maxaa lagu maleegayay oo Carabtan iyo waxa kan ay uga carartay Iiraan haddaba waxa soo dhan waxa leeyahay waxba ku gadaaman waxay doontaba ha ahaatee laba mitay leeyin dadka falanqeeyaashu Iiraan inay xog ka shakisay dalalka maartay ka soo qayb galaya inay ka carartay oo marka ay u shaqeeyaan Israa'iil iyo waxa kan ay uga shakisay dalalkan laakiin waxay leeyihiin Istanbul ma diidano Istanbul waa iyada isaga daba noqonaysa wasiirkeeda arrimaha dibadda Ankara Istanbul meelaan dhan u tagayay wuxuu la kulmayay Istanbul caadi dib ma jiro laakiin meesha waxa lagu qabanayay iyo waxa meesha lagu falkinayay iyo niman sirdoona oo maartay u jaajuusaya Yahuud iyo waxa kan waxay leedahay marka sheekada kuma jirno adeeryaalo ma wada hadlaynaa wadanka Cumaan isku kaana keeno haddii kale annagu shir ma rabnaba Iiraan furkay tuuratay okay marka Mareykan marka muxuu yiri Mareykan wali war lagama hayo kii horaan wali ku taaganahay iyo halkaana tagaa midna lagama hayo waxa uu la og yahay Mareykan inay wada hadalladu markii hore ogolaadeen Istanbulna la isu balansaday laakiin hadda ayuu warkan soo dhacay aanadi tuso telefishinka Al Jazeera war degdega qoraya wuxuu leeyahay war degdega waxa qortay journalka la yiraahdo Axios ee Mareykanka ka soo baxa wuxuuna sheegay in Iiraan ay codsatay in la bedelo makaanka ama koobta wada hadalladu ay ka dhici lahaayeen iyaga iyo Mareykanka isku arki lahaayeen jimcaha makaankii Istanbul oo lagu shiri lahaa hana loo wareejiyay marka ilaa hadda marka Mareykankii wali tafaasiil lagama hayo kullay barnaamijyada dambe ayaanu ku soo gudbin doonaa macluumaadkaas iyo wararkaas dhanka kale Iiraan waxay sheegtay
si official ah inay u hakinayso barnaamijkeeda nuclearka maraykanka rabtaa inay tiraado annagu waa hakinay sida wax u rabtaa ka wada hadlaynaa uraniumka ma la qafiifinayaa sida annaga kor iyo hoos ma ka tanaazulayno nuclearka nabadgelyada laakiin hadda hawshii socotay waa joojinaynaa tacliiqa ku samaynaynaa macnaha waa hakinaynaa waxbaa ku samaynaynaa meesha joojinaynaa waa la hakinayaa kadib aan ka wada hadlaynaa marka qaabka iyo sida aan u samaysan karno nuclear warbixino kala duwanaa marka soo baxaya waa la rarayaa uraniumka waa kaas aayatullaahiga wuu ogolaaday in ruushka la geeyo laakiin warkii ugu dambeeya aan haynay muxuu yahay in ay sheegtay Iiraan in uraniumkeeda aan meelna in loo qaado aanay rabin ay waxooda haysanayaan haddaba markaan tusayana warbixin arrinka laga qoray oo cajiib ah telefishinka Sky News wuxuu leeyahay Iiraan waxay diyaar u tahay inay joojiso oo ay hakiso barnaamijkeeda nuclearka ah si loo dejiyo xiisadda kala dhaxaysa Mareykanka waxay yiraahdeen inaan hakino diyaar u nahay si xiisaddan loo dejiyo laakiin waa ka tanaasulaynaa ma waa wada joojinay gabi ahaantii ma waxaas ma waa hakinay waay si xiisaddan iyo wada hadalkan aan u galno oo miiska loo tago leeyaado uraniumkeena anagu nabadgeliyaan u rabnaa nuclearkeena waa ka saas wixii meesha la fariisto inta marka xiisadu ka dagayso shaqadii noo socotay waa hakinay marka Mareykanku wali wax jawaab laga bahayo asaga wuxuu taagan yahay waxa dhan waa ka shakisanay ee alla baabi Israa'iil qabta gantaalaha ay haysatid baabi waxa soo dhan Israa'iil warkeedu waay marka sheekadaas halkaas ay ka socotaa marka warbixintaas iyaduna wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay saacadihii la soo dhaafay ayay ka mid tahay sheekada xiisaha leh maanta waa la isku helay marin biyoodka Hormuz la yiraahdo meeshaas waxba ka soo socda waa idin sheegay markab weyn oo kuwa xamuulka oo maaragtay shidaalka iyo waxa kan qaada oo Mareykanku leeyahay ayaa wuxuu ku soo dhawaaday biyaha Iiraan dhankeeda u soo galay markaas sii socday hal mara dhinacyada waxa uga tagay 6 doonyood oo qoriyo ku rakiban yihiin ayaa cayrsaday istaagay sida warbixinta ku qoran waxay kula hadleen isgaarsiin bahri wax la yiraahdo oo dadka badda isula hadlaan joogso leeyahay ninka waxa la markabkii waa sii marshayst joogso markii leeyahay wuxuu ku og yahay Hormuz dhinaceeda kale inay Mareykanka fadhiyaan waa cararay wuxuu la hadlay Mareykanka wuxuu joogso waa ku baareena leeyahay waa soo cararay iga soo gaar laba markab oo Mareykanku leeyahay ayaa iyaguna markaa soo aaday markii biyaha Iiraan ay ka baxeen oo markabka ka baxay oo iyagoo fooda u saaran ayuu dhinaca kale u gudbay meeshii ciidamada Mareykanka ay joogeen markaas ciidamadii Mareykanka maraakiibtoodii dhinacyada ka istaagay nimankii marka waxay rabeen inay macal markabkan iyo kuwa kale soo gurmaday ay nagta ka saaraan hasaatee marka waxa la amar kore ala soo bixiyo oo ah haddii biyaha Iiraan uu ka cararay uu ka baxay oo badweynta uu joogo iskaga soo laabto lama garanayo marka nooc waxay ka mid tahay biyaheena lug ma soo dhawaa kartid inaad soo weerarto iska dhaaf markaba leedahay xataa ma soo gali karo sidee biyaheena ugu biyahooda xataa waxa leeyahay ma gelin markabka sida warbixinta Mareykanka ay leeyihiin biyaha Iiraan ma gelin badda caadiga meesha dadka dhan ka dhaxayso maray Iiraan xaggeedu laakiin u badnaa laakiin ma gelin biyood markaas waxay u soo baxeen meel ay ka soo baxeen laba yaqaan markabkii iyagoo qoriyo ku haya la ark haddana doomo dheereeya oo zawaariq la yiraahdo zawaariq bahri la yiraahdo doomo qoriyo halisa ku rakiban yihiin oo orod badan ay wataan markabkii marka halkaasuu ku cararay markaasuu biyo badan soo firdhiyay oo orday oo asagoo naftu hayso Mareykankii ka soo gaareen marka waxa la yiri waxa loo sigtay maanta in ay isku bilaabaan markabka Mareykanka iyo doomahan inay nagta iska saaraan oo dagaalkii meeshuu ka qarxi gaaray marka beesha hadii la wada degan yahay mar walba nagta la iska saaraa ogow cid ma la kala baxsanayo haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray
haddaba telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay wargeyska la yidhaahdo Wall Street Journal ayaa goordhow qoray in markaa shirkadaha badda war laga helay inay sheegayso 6 doonyood oo hubaysan oo Iiraan leeyihiin inay ku dhawaadeen markaasi Mareykanku leeyahay oo marayay meesha la yiraahdo biyo mareenka la yiraahdo Hormuz waxayna ku amrayeen inuu joogsado marka tafaasiish marka waa inta idin sheegay marka wuxuu leeyahay joogso markii dambe sidaas uu ku baxsadaa marka meesha waxa ka socda waxaan caadi ahayn wararkaas ayaa soo kordhay saacadihii la soo dhaafay asxaabay qayb danba noo hartay war cajiib ah cabsidii inta ka badatay yahuudi ayaa waxa leeyahay meel istaagaan ilaahi tababarkii ugu qosolka badnaa ugu yaabka badnaa waa sameeyay yiraahdeen maxaa dhacay 2,000 oo gantaal haday hal mar nagu soo dhacdo sidee dadka dhaawaca u kala qaadayna waxyaab loo dhibku 2,000 oo gantaal in lagu soo dhufan karo aaminsan mar kaliya ka waran awoodda Iiraan marka ma sahlana ogaada meesha ka cadeynaysa tababara marka la sameeynaya kooxaha gurmadka mid hadduu soo dhaco laba hadduu soo dhaco waxbay kala gaari karaan laakiin 2,000 oo gantaal haday soo dhacdo sidee dhaawacyada loo kala guraya marka hadda tababar arinka ku saabsan la qaadanaa lagu leeyahay marka waa arkay daba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa sheeko la yaab leh nimankii Israa'iiliyiinta cabsi darteed ayay wax kasta sameynayaan lagu leeyahay dhanna waxay ka wadaan fidno waxay leeyihiin Mareykan ha ka joogsanin weerar Iiraan dagaalkaas way in Iiraan la weeraro way rabaan midda kalena jugta ku dhici doonto way aaminsan yihiin way yaqaanaan hadda waxa lagu leeyahay tababara dhacay xalay saqdii dhexe labada markay ahayd saacada oo macnaha 8 saac habeenimo aroortii oo saakay oo talaada ahayd tababar yaab laha ciidamada sameeyeen iyo kooxaha gurmadka lagu leeyahay haddaba markaan tuso tababarka yaab kale adduunyadu ka sheekeynayso wakaaladaha wararka ayaa qoraya warbixin ay qortay jariirada Raayul Yawm waxa leeyahay warbaahinta cibriga ama warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen goordhow in ciidanka Israa'iil ay sameeyeen tababar ay kaga hortagayeen weerarada Iiraan marka ay soo dhacaan 2,000 oo gantaal oo goobaha magaalooyinka ay ku dhacaan haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay jariirada la yiraahdo Macaariif ee ka soo baxda Israa'iil ayaa talaadada maanta qortay tababarkaas inay sameeyeen ciidanka Israa'iil iyagoo ka hadlaya dhibaatada sawaariiqda Iiraan ay ka geysan karaan gudaha Israa'iil 2,000 oo gantaal hadii ay soo dhacdo Israa'iil sidee dadka ku nool Israa'iil ay u ekaanayaan maxaa dhici doona haddaba dhanka kale waxa la sheegay in kooxaha gurmadka iyaguna ay sameynayeen tababar ku saabsan sida ay dadka u daweyn karaan u badbaadin karaan dhaawacyada u qaadi karaan goobaha burburka uu ka dhalan doono nimanku nooc kala way xagga waxay leeyihiin wada weerara halkana waxay leeyihiin waa baqayna sidee dadkeena u kala gurnaa dhaawaca macnaha meeshan waxay ku tusinaysaa gantaalaha difaaca la haysto inaan waxba lagu kalsoonaa karin dagaalkii 12 maalmood la isbartay ogaada Israa'iil waxa ay hadda tababarka u sameynayso gantaala sidee uga hortagnaa ma dadkeenu waa difaaci karnaa ma 2,000 oo gantaal markay nagu soo dhacdo sidee dhaawacyada iyo meydka u kala gurnaa way marka meeshaas waxba ka jira waa yaab la baarool ma baqlayna haddaba qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkayga labaad ku xirnaa